qof walba oo inaga mid ah wuxuu jecel yahay barashada xirfad cusub, laakiin in badan oo inaga mid ah xirfad ma bartaan ama dhex ay uga tagaan oo waxay dhaafi waayaan caqabadaha. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa dhowr tillaabo oo kaa caawinayo sida aad xirfad cusub si fudud ugu baran lahayd. Qodobka koowaad, deji hadaf. Dejinta hadaf waa tillaabada koowaad ee xirfad lagu barto. Tusaale, waxaan rabaa inaan barto digital marketing, khaasatan paid media, si aan shaqo uga dhigto. Waa hadaf cad. Qodobka labaad, raadi meesha aad wax ka baran lahayd. Tusaale, si aan digital marketing u barto, ugu horreyn waxaan ka bilaabayaa in aan muuqaalo ka daawado YouTube anigoo baarayo digital marketing, waxyaabo maxaa la dhahaa, maxay u qaybsantaa, iyo cashiro basic ah oo fara badan ayaan ka qaadanayaa YouTube. Waxaan soo gelinaa YouTube-ka cashiro oo digital marketing ah iyo social media marketing waa ka heli kartaa. Markaa basic cashiro badan qaato, waxaan bilaabayaa inaan baaro koorsadii aan qaadan lahaa, taasoo noqon karto mid lacag ah ama free ah. Anigoo baarayo koorsada ugu fiican ee dadka ammaaneen. Meelaha ugu wanaagsan ee koorsooyinka laga gato waxaa ka mid ah Udemy, Coursera, ama website Soomaali ama ajnabi oo shakhsiyaad ay leeyihiin. Koorsadaas ayaan ka qaadanayaa anigoo mar walba waqtigeyga gelinayo, waqtigeyga ugu fara badan anigoo ku qaadanayo in aan muuqaal YouTube ka daawado ama qoraal akhriyo ama buug akhriyo. Waqtigeyga ugu fara badan waxaan ku bixin doonaa xirfadaas aan rabo in aan barto. Waa tillaabada labaad ee aan qaadayno. Qodobka saddexaad, ka bilaaw wax yar. Si aadan uga niyad jabin barashada xirfadan, waxaa muhiim ah in aad ka soo bilowdo qaybaha hoose adigoo xoogga saarayo ciwaan in aad mar walba qaadato. Qodobka afaraad, sameey practice joogto ah. Sameynta practice joogto ah waa furaha barashada xirfad cusub. Markii aad cashir qaadato, sameyso waqti adiga qaas ku ah, taasoo aad ku celcelinaysid ama aad tijaabinaysid waxa aad baratay. Qodobka shanaad, raadi feedback. Raadinta feedback ama waxa uu ka dhaho qof kaaga horeeyay ama kaaga aqoon badan waxa aad baranayso waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato meesha aad xoogga saarayso iyo sida aad wax u baranayso. Wuxuuna kuu noqon karaa qofka hage. Qodobka lixaad, dulqaad lahaaw. Barashada xirfad cusub waxay qaadataa waqti, waxayna kaaga baahan tahay dulqaad fara badan. Adigoo sanado ama ka badan baranayo ayaa waxaa laga yaabaa in aadan wax natiijo ka gaarin ama hadafkaaga aadan gaarin. Waxaa lagaaga baahan yahay in aad dulqaad fara badan la imaado, keliyana aad xoogga saarto barashada xirfadaas aana joogtayso. Qodobka toddobaad, raadi bulsho kula mid ah. Ku biiridda bulsho aad xirfad isku mid wada baranaysaan waxay noqon kartaa mid dhiirigelin fiican aad ka hesho iyo feedback, misana aad waxyaabo badan iskula wadaagtaan. Qodobada haddii aad xoogga saartid, waxaan rajaynayaa inaad xirfad walba aad ku haminaysid aad si fudud ku baran doontid. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu kugu dhiirigeliyo barashada xirfad cusub, wax una aad ka faa'iidid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.